marka dembigan waxaa lagu mutaysanaya cadaabul qabri. in badan oo naga mid ah ama kuma baraarugsano inay dhib intaas leeyahay ama garan maayaan ama wax xasuusnaba. marka waxaa muhiim ah keenay hilmaansi inaanu xasuusino, keenana aqooni inaanu barno, kaan ku baraarugsanayna oo ka dugtoonaado arrinta noocan oo kala ah ee sababi karto cadaabul qabri. adigana aad aaminsantahay inay wax yar tahay oo sanaadan dambi soo culus isan ka soo gaareeninba, ama mararka qaar qofku aaminaba inuu soo wax dambi ka soo gaareenin. Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhu Allah karaal noqde wuxuu yiri nabiga kaleey salaam maalin soo maray laba qabri. dabeetana nabiga kaleey salaatu wasalaam labadii qabri buu wuxuu yiri labadaani innahuma la yu'adhibani, labadaani waa la cadaabaya oo cadaabul qabri bay ku jiraan, wama yu'adhabani fi kabirin. يعني ذنوبتنا وأوينتا عند الله وإكوينتا، لكن أنجي با يرسننو أمن سئين وحفظ الطهي أما بكبر الرقسنين أما بكلا جعلين، لكن إلى أنت سبحانه وتعالى وإكوينتا عذاب القبر بالغم التسنية. كان كوادي محوهاي ما أهن ميت كاذيدا يعني إسكردم يعني أصيغ استجوني وكاذيدي aan si fiican isaga dhameenin buu masquushi ka soo kacaya. markaas maradii iyo boodii waxooga halaabayaan, ama markii uu soo kacay kaadii soo dareeraysa, kaadii si fiican isaga ma dhameenay ahadka noocaas oo kala. waana wax dambi xun oo cadaabul qabri lagu mutaysanayo. kan kale wuxuu ku tilmaamay nabiga kaleey salaam dadka buu isku dirdiri jiray, namiin buu ahay oo qof isku dadka isku dirdiraahay janno ma galo. waxa ummadii kala fogeeyay waa wax noocaas oo kala